degmada Xamarjab ee gobolka Banaadir waxaa saaka lagu dilay 2 qof oo la sheegay inay marayeen degmada Xamarjab kuwaas oo watay 2 mooto waxaana dilkaasi geystay rag kale oo watay mooto kuwaas oo markii ay dilka geysteen isku dayeen inay goobta ka baxsadaan xasaatay ciidamada ammaanka ayaa dabagal dheeraad ah ku sameeyeen raggaas dilka geystay kadib waxa uu suuragashay in raggaas ay gacanta ku soo dhigaan sida uu warbaahinta u sheegay afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifitaax Cumar Xalane waxa uu intaa ku diray afhayeen Xalane in ragga ay soo qabteen ay wateen hub gacantana lagu hayo iyaga hubkooda niman 2 mooto watay oo mooto saarna ayaa qolo kale oo mooto wadatay ay labadii qof badileen markay dileen kadib ayagii baa la daba kacay hadeer ay ciidamadu soo qabteen kuwii wax dilay iyo hubkoodii iyana guul ay ahayd degmada waxa ka dhacay Xamarjab markay dileen kadibna ciidanka daba kacay labadoodina gacantay ka soo qabteen macluumaadkood maalmahan ammaanka markii gobolka lagu wareejiyay la hamiyay saanu fashilinayno oo shabaabka iyo waxyaabaha oo ugusta iyo kuwa arxanka daran gacmaha uga soo xirina wad arkaysa ciidamaduna waajibkeeda ay guteen falalka noocan oo kale ayaa waxay yihiin kuwa dhowr jeer ka dhacay magaalada caasimadda ee Muqdisho waxaana ciidamada ammaanka falalkaasi ay u soo qabtaan dad la xiriirinayo al-shabaab walow ijaan mararka qaarkood inay baxsaan ragga falalka noocan oo kale ah geysta